waxa xarunta dhalinyarada ee magaalada Jigjiga lagu soo xidhay munaasibada tartanka Qur'aanka Kariimka ee loo qabtay ardayda xaafidiinta waxna soo agaasimay tartankan ururka dhalinyarada ee Saygo oo ka aasaasan caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga tartankan oo socday muddo 5 cisho ayaa waxa ku tartamaysay arday gaaraysa 150 arday oo wiilal iyo hablo iskugu jira waxayna ku tartamayeen ardaydan 30 juz 20 juz iyo 10 juz ee Qur'aanka Kariimka munaasibada lagu soo xidhayay tartankii socday lagu tartamayay Qur'aanka Kariimka ayaa waxa ka soo qayb galay waxgaradka deegaanka culimada haweenka dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn lagu furay Qur'aanka Kariimka i'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أفريتان كدب وحا مناسبة كلمة سكيري هوغان كدعوة دي تعليم تقلاء الرماء إسلام كمامل كمغالة جيجيغا الشيخ مصطفى آدن عبد الله ولا الغيال فرصدها نوكلي وفرصدها وقالسا أدون كوية إلهي سبحانه وتعالى وحلوه شكريه أو لوجو ما حد نقنويه إلهي سبحانه وتعالى إنه نسيه جانس إياه سورة قلين على إنه سورة قليه إنه نوقف صومان حفلة نوعا وكلاه تتبع وحوفا ديان حفلة كوان كدوان أو محوها ويلش إيا قبلها استحياء قوانانتا إيا فسقها إيا حمانتا innaguna sida xushmada leh iyo karaamada leh iyo wajiyada quruxda badan iyo iftiimaya iyo moralkeena oo aad u sareeya ayaan waxaan u fadhinaa in aynu ilaahay baa karaameeyay innaguna aynu sharfino oo karaamayno dadkii tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee saddexda heer ugu soo tartamay inaan innaguna aan halkan uga muujino taageeradeena iyo guubaabinteena inaynu guubaabino si ay u eegtaan jiilalka iyo kuwa kalena ay u soo bilaansadaan bildaan fiican kuwii ka horeeyay quruxda markay arkaan iyaguna ay u soo labistaan isla markaa ay ku soo hirtaan qaariga maamulka magaalada Jigjiga Sheekh Abdullaahi Mahad Maxamed ayaa isna ka jeediyay kelmadiisa munaasabada lagu tartansiinay ardayda xaafidiinta ah kuna dhiirigeliyeen la badiyo kulamada noocan oo kala oo ardaydiisi soo diyaarsaday itixaam qaadaya oo leh kal dambe waxaan bixinaynaa umro macalinka ardayga waalidkii intaba waa umraan siinayna waan la yaabay haddana waxaan ka qayb galay kililkii oo gobol intuu isugu yeedhay fadlays kala daalayo tanaba ka sii daran baan idhe haddana waxaan ka soo qayb galay gabdho iyo dhalinyaro intay is abaabuleen itixaam baan qaadaynaa yidhi xaqiiqatan arrintan waa arrin taariikh galaysa waa arrin lama iloobaana weeyaan kamana dhicin baan anigu leeyahay geeska Afrika waa arrin hor leh oo bikra ilaahay waxaan ka baryayaa dhalinyarada arrintan intay ku fikirtay fulisay inuu arrintan miisaanka xasanaadkooda u dul dhiga maalinta qiyaamada subxaanahu wa ta'ala wa jalla jalaaluhu gudoomiyaha dalada ururka dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida ahna gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida injineer Cabdiwali Sheekh Abdullaahi ayaa bogaadiyay dhalinyaradii soo agaasintay inuu qabsamo tartanka Qur'aanka Kariimka kulli doorka nagaga aadanka dhalinyarahan waxa weeyaan tusaalahan fiican ay dhalinyaradii soo qaban qaabisay iyo macallimiintii soo qaban qaabiyay maartay ayagana kaalinta ka geystay inaan maartay anagana sii xoojino oo aan maartay wixii ka dhalinyarahan aan maartay nagaga aadan inaan kaga qayb qaadano aad baan ugu faraxsanahay waa barnaamij la qabtay kii ugu wanaagsanaa baan dhihi karaa sidoo kale isna waxa kelmadiisa ka yiri munaasabadan xogayaha guud ee ururka OYSU Umar Sheekh Abdullaahi Umar Sooya ka qayb qaatay ardayda tartanka gashay iyo dhammaan dhalinyarada qaybaha kala duwan ka soo qayb gashay aad baan salaamaya runtii farxad gooni ah ayay ii tahay maanta ururka Saygo ay soo qaban qaabisay markii ugu horeysay ma aha marar kala duwan oo muxaadarooyin fara badan iyo shaqooyin fara badan oo xagga dacwada ku saabsan ay soo qabteen runtii ururkan dhalinyarada Saygana dhalinyarada kale way ka duwan yihiin xagga dadaalka ay wadaan iyo wax walba qabadkoodana aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa runtii mar walbana waxa fiican ururada dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida ururka dhalinyarada Saygo oo hawshan u wado kale
intaasi kadibna waxaa isagoo ku hadlaya afka macallimiinta tartansiinaysa isla markaana ardayda ka qaadaysay imtixaanka kelmadiisa ka yiri munaasabadan ay ku tartamayeen ardayda xaafidiinta macallin Yaxye Xaaji Cabdi. ilaahay waa mahadle maanteena soo gaarsiiyay gabagabadii imtixaankii ka socday magaalada Jigjiga. imtixaankaas ay ka qayb galayeen madarasooyinka magaalada Jigjiga noocyahooda kala duwan. anoo ka hadlaya magaca lajnadii imtixaanka qaadaysay. ardaydu waxay isugu jirtay 3 qaybood oo kala ah qayb 30 juz ku galeysay iyo qayb ku galeysay 20 juz iyo qayb ku galeysay 10 juz. marka alxamdulillah ilaahay ayaa mahadle si wanaagsan bana u soo dhamaatay. ururka dhalinyarada ee Saygo oo ka aasaasan caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa soo agaasimay munaasabada lagu tartansiinayay ardayda xaafidiinta waana markii u horeysay dhalinyaro isxilqaantay ay qabtaan tartan noocan oo kala Hodan Khaliif Axmed Hodan Dajiya wararka telefishinka caalamiga Nabad TV xarunta dhalinyarada ee magaalada Jigjiga.